wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa wehel cusub media ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo ku falanqeyn doono xukuumadda cusub ee Somaliland oo ka hadashay mowqifkeeda ku aadan heshiiskii magaalada Ankara ku dhaxmaray dawladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya. Xukuumadda cusub ee Somaliland ayaa sheegtay in heshiiskii Ankara ku dhaxmaray Soomaaliya iyo Itoobiya inuu yahay mid aan iyadu qusaynin, iyadoona xustay in isfahamkii Somaliland iyo Itoobiya uu yahay mid dib u eegis lagu sameyn doono. Afhayeenka xisbiga wadani Maxamed Faarax Cabdi ayaa sheegay in heshiiska Ankara ku dhaxmaray dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya inay yihiin laba dal oo jaar ah, isla markaana aan Somaliland waxba ka qusaynin heshiisyadaasi. Heshiiska ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxba inagama quseeyaan, waa laba dal, annaguna waxaan nahay Somaliland, ayuu yiri afhayeenka xisbiga wadani Maxamed Faarax Cabdi. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in mowqifka xukuumadda cusub ee ku aadan isfahamkii ee horey u dhaxmaray Somaliland iyo Itoobiya in xukuumadda cusub aysan weli iska arkin isfahamkaasi, balse marka ay qiimeeyaan laga gaari doono go'aan ku saleysan danta Somaliland. Xukuumadda hadda ayay talada la wareegtay, waana arki doonaa marka la darso haddii ay danta Somaliland ku jirto waa laga shaqeyn doonaa, haddii aysan danteenu ku jirinna lagama shaqeyn doono, ayuu yiri afhayeenka. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda cusub ay dib u eegis ku sameyn doonto dhammaan heshiisyada muhiimka u ah ee Somaliland ay gashay inay yihiin kuwa waafaqsan danaha Somaliland iyo mustaqbalkeeda. Waxaa sidoo kale uu sheegay in xukuumadda ay diiradda saari doonto isla markaana ay mudnaanta siin doonto mashaariicda horumarinta iyo nabadgelyada gobolada bariga. Hadalkan ka soo yeeray xukuumadda cusub ee Somaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo Soomaaliya iyo Itoobiya ay dhawaan dalka Turkiga ku gaareen heshiis dhigaya in Itoobiya ay marin biyood ka hesho Soomaaliya iyo in Itoobiya ay aqoonsato midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Ugu dambeyntii sanadkan sii dhamaanaya ee 2024 bilowgiisii ayay ahayd markii magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uu heshiis isfaham uu ku dhaxmaray Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, kuwa oo ku heshiiyay in Itoobiya ay hesho qayb ka mid ah biyaha iyo dhulka Soomaaliya, taa beddelkeedana Itoobiya ay Somaliland u aqoonsan doonto dal madax bannaan. Waxaana heshiiskaasi si weyn uga hor yimid dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay si weyn isku beddelay xiriirkii ka dhaxeeyay dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo dawladda Soomaaliyana sanad kadib ay ku guuleysatay inay kaga guul gaarto dawladda Itoobiya damaceedii guracnaa ee ku aadanaa helista qayb ka mid ah biyaha iyo dhulka Soomaaliya. kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye. waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tifiyada Soomaalida dhammaantood. kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet, rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. aniga waa qanciyay, adiguna ma ku qanciyay?